identity iyo shakhsiyaadka bini aadamku muxuu noqonayaa sidaa awgeed dhalinyarada muslimiinta ee dambe waxaa ka muuqda madaahir dacfi shakhsiya muuqaallo muujinaya inay shakhsiyadoodii liidato muuqaallo muujinaya muctaqadkooda iyo afkaartooda iyo suluugoodu inay isa soo khilaafayaan waa muuqaalle naxdin leh runtii laakiin waa muuqaalle aanay u fiirsanin markaad aragto shabaab muslimiina oo ku faanaya afkaar cid kale leedahay dhaqamo cid kale leedahay hiddo cid kale leedahay maalmo farxadeed oo cid kale leedahay u dabaaldegaya ku faraxsan waa maxay waa qof dawabaan lagu sameeyey waa la maydhay waa maskhi waa qofka shakhsiyaddiisii oo maydhmaysa laakiin waxay u maydhatay isagoo aan ogeyn war ninka waalan ku daya cidina kuma odhanin laakiin mid waalan oo kale oo xashiishadda caboo heesaa la keenay oo codkiisa malaayiin ku dhaliya laakiin raama leh oo heylya xidhan oo maradu googo-an tahay oo bira xidhan oo dhagaa doloshaday oo timaa badh xiidhay markaasaa lagu yidhi ha huwa shakhsiya laguma odhan waa nin waalane ku daya waxaa lagu yidhi star waa xidigaha dunida xidig ka mida bob marley baa la yidhaha waa xidig bob marley miyaad nin waalan u taqaanin maya waa xidig da isagu ileen wuxuu leeyahay astaamihii la ammaanay o dhan idan ayuha alikhwa waxaan tilmaamayaa waxa weeyaan inaad shakhsiyad yeelataan shakhsiya qawiya personality inaad qof noqoto damiir leh dadnimo leh qof ah muctaqadkiisa ku faanaya dadnimadiisa ku faanaya waa inay kufaan gelisaa inaad qof muslim oo soomaaliya tahay qof muslima oo soomaaliya inaad tahay waa inay wax lagu faano kuu noqotaa wax laga faano waa inaanay kuu noqonin inaad muslimnimadaada qarsato ama soomaalinimadaada qarsato ama dadnimadaada qarsato waa wax liidinimo ah waa inaad waxaad ku faanaysaa uu noqdo inaad qof muslim oo soomaaliyeed tahay taasi waxay keensanaysaa marka inaad la mid noqonin kuwuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mararka dacfi iimaanigii uu dhaco ee dadka iimaankooda uu daciifo waxa ku dhaca waxyaabo badan oo isbeddela ah gabadhii muslimadda ahayd oo isa sii beddelaysa inankii muslimka oo isa sii beddelaya dhaqamadiioo la beddelayo waxaasoo dhamme waxay la mid yihiin tuu nebigu leeyahy latatabicanna sunana man kana qablakum waxaad raaci doontaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dhaqamadii kuwii idinka horreeyey taako taako iyo dhudhundhudhun baa u raaci doontaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xataa hadday galaan buu nebigu yihi god masalugalay masalugalayda sooma taqaaniin masacagalayda tayaryar baa dabka la yidhaahdaa tan waaweyn waral baa la yidhahdaa waddankeena degan god masalugalay hadday galaan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam latabactumuuhum waa ka dabagelaysaan mithaalkani waxa uu tilmaamayaa shayguu tilmaamayaa waa maxay haddaad si fiican ugu fiirsato godka masalugalay waa meel madow oo yaroo qurhmuun soo maaha meel la gala miyay ti meel wixii gala laga daba gala miyay ti yani wuxuu tilmaamayaa indhala-aan baad waxaa u qaadanaysaa waxaad qaadanaysaa adigoo aan soo marin maxay almisfaat alcaqliya caqligu waa shaandho afkaarta iyo aragtida iyo waxa lagu reebaya lagu shaandheeya muctaqadku waa shaandho waxa lagu sheegaya lagu shaandheeya wixii lagu sheegaba lama qaato wixii tv ka soo baxay iyo wixii jaacad lagu dhigay iyo wixii la sheego dhan lama cabo ee waa la iska safeeyaa marka la safeeyo maxaa soo baxaya wax wax anfaca iyo waxaan wax anficin waxaan wax anficin waa la iska daadiyaaday shaandhada waxa loo samaystay maxay markaad wax hufaysa maxaa wax loo hufaa waxa aad sileeday markaa ku anfici maayo inaad iskaga reebto haddaad shaandhada marin weydo wixii ku soo mara maxaa soo baxaya inaad indhala-aan u liqdo moodo wixii ka yimid war ninka xidigaha tegey haddaad tidhaahda wixii ka yimid dee wax lagu liibaanayo ka war ninka xidigaha tegey ninka xidigaha tegay dhaqankiisa kale haddaan kaaga warrano ninka xidigaha tegey nin baa islaamay markaasay yidhaahdeen markaad muslimka noqotay waa reer galbeedka markaad islaamtay waxyaabay ugu fiicnaa aad aragta maxaa ka mid ah wuxuu yihi wax kaloo dhan ba haddaanan helin qurhmuunkaygii baan ka nabad galay buu yidhi ma maqashay qurhmuunkiisuu ka nabad galay
يعني قلبات كده صحراء الله اسكما ما يروح وراغب يدبده كله رجستان ولذلك بين كبر جاء هو ذو بصورة مركا وحلا مركا عن السلامة ماشي النديفية أرتي دي بابا كان نبات قليل إنسان كقياس يعني هذا واحد مودين فحملنا ليش يجي إنسان طلياني يروح حكوا إسلامي دبيلوها ده تنويل الجيريا ما نورث أفريقيا كيما مسلمين تابع در كيسة وكيسة در كيسة سرية كيسة هو سبب وجية مركا وحنا باركا وندنكس عن حار الحيبة والله ما يلاقي نكى بوي وده وحدني وادو سؤال مكويدين كرهاب يري هي واحد كويدين يا بولي أتيك مرض هذا السرية مرض هذا هو سواسكم إذا ما حد سوى صح مرض هذا صار هي مرض هذا هو سواسكم نوعه حد سوى صح مركا صور من إنه إسلامي هاي طهارة قاطع عين كانوا يعني قال كان يوحوا مرض كستي الله كأنك راينا حار لا أحد الدكاترة الصوماليين من دكتور جيولوجي دكتور كا يعني برلين يونيفرسيتي كل ما مركز سأل لقى شيء كي دقن كان من كان بسوي حلو حيابا أطلع بسواح كمدها أكبر بولي بروفيسور كي ماشي ولا قدم بي أيام صراعنا يبولي حاب بتجو نركو لب حياة وحربيون الضباشة مسا وراء الصحراء دي كنت على الضباط أقول لك دكسر بولي ولا كويس كده وبروفيسور كي ماشي إذا نك تدي حتى حاركس كمان محلو السؤال إن مركز تدي حتى كل شيء وتمام أنا قلت هذا مركز واضح waxaad u baahan tahay misfaat caqliya inaad mariso misfaat diiniya inaad mariso dhaqamada westernka kaaga imanaya waxa kan ayuha alikhwa shakhsiyada qofka muslimka ee dhabta ah waxa soo saara waa caqiidada rabbaaniga ee uu qofku garanayo xaqu u socdo wuxuu u nool yahay aakhira inay ka dambayso dariiqa la marayo uu garanayo laakiin qofkaan muslimka ahayn ma garanayo waa mutaxayir wuxuu u nooliye garan maayo wuxuu dunida ka qabanaya garan maayo malhaab ku jira inuu istawakhiyo markaa maadaama qofku garanayo wuxuu u nooliyaa waa inuu ismashquuliyaa boodbood cayaar khamri cab xashad cab balaka lacab iswaal waqtiga lumi haddaadna waqtiga lumiga qaadato ka war adoo muslim waa shakhsiyadda muslimka maaha shakhsiyadda waqtiga lumisa haddaadna qaadato waqtiga saan u lumiya baaniya waqtiga baan ugu tira bata waxaan ku luminaba garaweyn qaadka cun markaa نوع وقيل يا وقت قالوا بيه فحنا لنا وحي نوبة هنا إلهي وحلاه ولقد أرسلنا إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامين الرسول صادري محل صادر الرسول بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان الرسول با صادر يبو إلهي سبحانه وتعالى الرسول شو حل سور راعي بينات كودي دليل دودي عدينا يني حق ربك يا مادين معجزات يبينات بي وتنشيغ يين الرسولين ارجو الهي صادرين يهين maxaa inaga la inoogu soo dhiibay marka alkitaab wal miizaan baa ilaahay kitaab baa idinku soo dhiibay iyo miizaan yani kitaabku miizaanku ka tirsay miizaanku kitaabku ku jira waxa la inoogu soo dhiibay misfaadkaasi muwaasiinta aynu nolosha dhan ku qiimeynayno aynu ku kala garanayno maxaa sax maxaa qaldan maxaa la qaadan karaa maxaa la qaadan karin maaha qofka muslimka ah dimuqraadiyad baan qaadanay kan baan qaadanay waxaan baan qaadanay waxaan wixiisi ahayn inuu ku faana maaha waxay wixiisa inuu tatwiirsado oo horu mariyo hadday naqsaani ku jirto oo wixiisa ku faano